السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن إذا لهانتين بداوضيا شيدا قيمها إي قدرين تمضن إدافها عالم كاحنا قداوضا ميل كستاد جوگتان يحلي والبايدين تهي كسو دوادا وركا سيما تي في ودبدا وركاد عاوكو مقلي دونتان وحا كمدا 75 sano guuradii kasoo wareegtay markii madrasada Xaaji Cali la aasaasay ayaa sabtida nagu soo foodle la xusi doonaa maamulaha madrasada Xaaji Cali ayaa wakaalada wararka ee Simah u waramay ururka midowga caasimada magaalooyinka dalka Itoobiya ayaa si maqaam sare leh loogu soo dhaweeyay magaalada Togwajale qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan isugu soo laaban doonaa hadduu alla idmo isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan halkan aad sida tooska nooga dheehanaysaan waa telefishinka Sima haatanna warkiyo fidsan 75 sano guuradii kasoo wareegtay markii madrasada Xaaji Cali la aasaasay ayaa sabtida nagu soo food leh la xusi doonaa maamulaha madrasada Xaaji Cali ayaa wakaalada wararka ee Sima u waramay faahfaahinta warkaasi wariye Ciise Khayre mudada laga joogo 75 sano ayaa dibadda loo taagay madrasada Xaaji Cali waxayna ahayd goob soo saartay madax badan iyo dad saameyn ku yeeshay geeska Afrika hadaba 75 sanadii guuradii ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay madrasadani ayaa la xusi doonaa sabtida inagu soo fooda leh Yusuf Muuse waa maamulaha madrasadani wuxuuna inoogu warbixiyay aasaaskii madrasadan iyo waliba xuska 75 sanad guuradu sida uu dhici doono 75 guuradii dugsiga Alfalaax ama Xaaji Cali dugsiga oo 75 sanadood adeeg istaba jooga bixinayay dad tiro badan ay ka soo faa'iideysteen dugsiga waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1947 maanta waxa laga joogaa 74 sanadood 75 sanadood dugsigan wuxuu soo maray marxalado kala duwan ama han idhaahdo laba geedi ayuu dugsiga soo maray geedigii koowaad iyo geedigii labaad haddana inuu sii gudbo ayaan rajaynaynaa insha Allah geedigii saddexaad geedigii koowaad dugsigan waxaa aasaasay sheekhi awliyada ahaa Xasan bin Cali ilaahay ha u naxariisto naxariistii janna ilaahay ka waraabiye sheekhaas oo aqoon badan diinta islaamka iyo luqada carabiga u lahaa dugsigu geedigiisii koowaad wuxuu bilaabay inuu baro dadka Soomaalida ee geeska Afrika ku nool intooda badan halkan ayay wax ka soo barteen carabiga iyo diinta العلوم الإسلامية هل كان يودكس بكبحناي ضد بدن أيها كسو وحبرتي شيخة علماء وين أيها شيخة علمي كسو برتي سدا شيخي وين مفسرين تأبود أها محمد معلم ورئيسي وبي بي سي دسيي كون سقال بقولي أفري سقاشن كي كوشيغاي إنه wax ka soo bartay Xaaji Cali oo daraba joogo waxa kale wax ka bartay dugsigan siyaasiyiinta saameynta ugu weyn ku leh geeska Afrika oo hormood ka yahay ama ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo arday ka soo noqday dugsigan wali hadana xusuustiisa ay oo aad ugu sawiran yahay dugsigan waagu dhigan jiray iyo sidoo wax uga soo bartay siyaasiyiin kala duwan oo saameyn weyn leh ayaa dugsigan ka soo baxay sida Maxamuud Dirar oo xilal kala duwan ka soo qabtay Itoobiya waxa kale oo ka soo baxay wasiiro tiro badan oo ka tirsan wasiirada Djibouti sida wasiirkii hore waxbarashada عبد البرامي عبسية وزيرك أوقافته دكتور حامد عبد السلطان يا وزيرك كوابلا سراكيل عيدن كا أياك صباح سراكيش عيدن كا جيبوتي وكويتو بيبا listiga ama dadka hadaan ka sheekaysanayno way tira badan yihiin
kama sheekayn karayno culimo badan baa ka soo baxday sida Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir ambassadors niman danjirayaal oo dawladaha caalamka ayaa dugsigan wax ka soo bartay marka wuxuu leeyahay taariikhda dheer barakada baa u helinaysay waxaan astaan oo dugsigan in uu 75 sano u soo adeegaya dadka Soomaalida geedigan labaad waxaa hogaaminayay Maxamed Macalin Cusmaan oo hadda nala joogo ilaahay khayr siiye nala xusi doono imikana kamid ah xubin ka tirsan boordiga u taliyo dugsiga geediga labaad talaabada dugsigu qaada waxay noqotay manhajka Itoobiya lagu dhiganayo in dugsiga uu lagu dhigto si ay dadku ay ula jaan qaadaan waxbarashada Itoobiya ka jirto ulana tartamaan Itoobiyaanka kale ay noolyihiin dadka Soomaalida wayna dhacdaytiisi hadda ardaydu meel kaste saameyn bay ku leeyihiin jaamacadda Jigjiga oo kale arday aan ka yareyn 100 arday ayaa ku jira hadda oo intooda badan ay dhigtaan medicine ama caafimaad dhakhtarnimo ay dhigtaan injineer badan ayaa jira bayrodaxda jira siyaasiyiin baa jira dhallinyartii dambe geedigan labaad ku soo baxay marka dugsiga taariikhdiisu sidaas ay ahayd dugsigu maanta wuxuu xusayaa sanad guurihii 75aad ee ka soo wareegay maalinkii dugsiga la asaasay waa dugsi fac weyn waqti badan buu soo adeegayay ummadda Soomaalida wax badan u soo tarayay hadafka aan ka leenahay ujeedada aan xuskan u sameynayna waxa weeyaan in dugsiga lagu soo xidho ardayda hadda aan soo sheegaynay ee tirada badan ee saameynta ku lahaa dadka saameynta ku yeeshay Geeska Afrika in lagu soo xidho dugsigii ay wax ka barteen dugsigii lagu anqariyay in lagu soo xidho ay hadeeto loo sheego ay ka warhayaan oo loo sheego in dugsigoogii halkii ka sii wada shaqadii waagi iyaga uu soo barbaariyay uu soo anqariyay hadafka labaad ama ujeedada labaad ee ka leenahay xuskan waxa weeyaan in aan muujino kaalinta weyn uu dugsigani ka soo galay waxtarka dadka Soomaalida Itoobiya ku nool iyo inay la qaybsamaan qowmiyadaha ay Itoobiya kula nool yihiin in ay wax la qaybsadaan laana waxbarashadu iyada ugu muhiimsan wax qofka lagu kobciyo oo qofka lagu koriyo maankiisa umalaha kalena waxaan u diraynaa fariin odhanayso haddaan Soomaali nahay 75 sanadood ka hor dugsiyo dadka garaadkooga kobcinayo aqoonta dhisayo ilbaxnimada ka shaqeynayo ayaan ku lahaan jirnay magaalada Daraba ujeedada saddexaad in xafladan u qabanayno waxa weeyaan in aan dhiiri gelino ardayda dugsiga dhigato waxaan ku dhiiri gelinaynaa waxa weeyaan markaan uga sheekayno taariikhda dugsiga markaan uga sheekayno dadkii waaweynaa ee saameynta lahaa ee dugsiga ka soo baxay waxa uu noqonaysaa arrinkaasi motivation waxa uu noqonaysaa dhiiri gelin waxay soo oranayaan inkuna waad gaari kartiin halka ay gaadheen dadkii kursigaad ku fadhidid hortiin ku fadhin jiray ee halkan aad wax ku dhiganaysiin ku dhigan jiray halkay gaadheen waad gaadhaysiin iyo si ay u aaminaan ay u rumaystaan in ay dhigtaan dugsi landheer ah oo qiimo badan ku fadhiyo hadafka ugu dambeeya afraad in ujeedada ugu dambaysa afraad in xafladan u sameynayna waxa weeyaan waxaan doonaynaa in aan asaasno ururka dadkii Xaaji Cali wax ka soo bartay oo caalamka ku baahsan inaan urur u sameyno ururkaas ujeedadiisu waxa weeyaan dugsiga inay ka warhayaan ay ku caawiyaan fikir muruq iyo maal intaba ay ku caawiyaan ay kulan joogto ah oo maxaa la yiraahday kolka wareegta ah ay yeeshaan isugu yimaadaan ay dugsiga ugu malaynayaan ay wax kaga bedelayaan isla markaana dhaqaale si loogu heli lahaa dugsigu si uu ballaadho ururka midowga caasimadaha magaalooyinka dalka Itoobiya ayaa si maqaam sare leh loogu soo dhaweeyay magaalada Togwajale la socda faalada warkan
ururka midowga caasimada magaalooyinka dalka Itoobiya ayaa si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyay magaalada Togwajale. ururka oo khibrad wadaag u tagay magaalada Wajale ayaa soo kormeeray mashaariicaha horumarineed ee laga fulinayo magaalada Togwajale ayaga oo soo indheeyay suuqa sariibada Wajale guryo wadareedyada iyo goobaha lagu xanaaneeyo dadka nugul ee tacaadiyada loo geysto. kormeerkaas kadib waxaa sharaxaad dheer laga siiyay barnaamijka horumarinta cagaaran ee laga wado maamulka magaalada Togwajale iyo qorshayaasha lagu horumarinayo magaalada Wajale oo uu soo bandhigay injineer Axmed Daahir Bade maareeyaha maamulka magaalada Togwajale. waa hagaag daawadayaal waxaan guud ahaan intaa kusoo gabagabaynaynaa war wixii aan idinku talagalay habeenkan caawa ee sida tooska idinkaga imanayay telefishinka Sima. warkan waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Zainab ah. mar kale intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinku sii dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.